بسم الله الرحمن الرحيم maanta tahay taariikhdu 5tii bishii shanaad 2022 hablaha ururka araga naafada ka ah ee Tafbalan Geeralis waxay ciidsiiyeen 15 caruur oo ku nool magaalada Hargeysa 15 ka caruur 13 caruur oo kamid waxay nagala soo qayb galeen munaasabadii aan ku daafurayna mashruuca ciidsiinta waxa jiray 3 caruur oo iyagu kiiskoodu special aha ama aha caruur xaalad gaar ah qaba saddexdaas caruur guryahooda ayaan ku booqanay waxaanan hadda la joogaa mid kamid ah saddexda caruur oo ah Marwa gabadha ay magaceedu yahay Marwa Najax Xasan waa gabadh yar oo araga naafaka isla markaana uu dheeryahay xanuunka dhimirka gabadha yar ee Marwa waxaan gudoonsiin doonaa deeq lacag oo ah $50 deeqda lacag oo aan ku ciidsiinayno oo ay tahay deeqdaas oo ah deeqdii aan ugu talagalay ururka Tafbalan Geeralis ahaan inaan ku ciidsiino waxaana naga gudoomi doonta maamo Muniira Maxamed Cali oo ah hooyada Marwa naga gudoomi doonta $50 oo aan ugu talagalay inay ku ciido Marwa Khadar gabadha yar ee araga naafada ka isla markaana uu dheeryahay xanuunka dhimirka naga gudoon وين كنتم تسألكم خيرات بدل ما تسنتين لا ذيك عبال مريضين كان هذا قصص إن شاء الله لا يدين بحيث كنا عادي قام